kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenan qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn Somaliland oo drones u adeegsanaysa baajinta safarka Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Laascaanood haddaba muxuu yahay qorshahan degdega ah ee Somaliland ay qaaday dronestan la ogaaday xogta muuqaalo la helay wararkii ugu dambeeyay arrintan la xiriira iyo xogo kale oo safarka Xasan Sheekh Maxamuud ee Laascaanood ku gadaana sababtu u baaqday isniintii shalay oo ku wajahnaa magaaladaasi iyo warar kale oo koonfurta la xiriira ayaa sidoo kale daawan doontaan balse marka hore inta aanan faahfaahinta guda gelin waxaan ka dalbanayaa muuqaalka inaad noo sheergarayso leeg saarto meel fogaarsi qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu soo gelino adiga oo rukumanaya barteena Race TV-na fura gambaleelka digniinta ah sidoo kale qaybta hoose aragtidaada ama commentiga faaladaada inoogu reeb waa hagaag aynu ku bilowno Somaliland ayaa la ogaaday in drones ay u adeegsanayso baajinta safarka Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo oo wararka soo baxaya ay sheegayaan in safarka Xasan Sheekh ee magaalada Laascaanood uu u baaqday cabsi laga qabo in Somaliland ay adeegsato drones la sheegay in lagu soo xiray waxyaabo ka hortagaya qorshaha degdega ah ee markaasi safarkaasi iyadoo oo waliba dronestaasi la ogaaday in ay beegsanayso diyaaradaha sida gaarka ah qorsheynaya in Laascaanood ay ka degaan cabsi badan ayaa ka jirta magaaladaasi oo la xiriirta safarkii Xasan Sheekh Maxamuud oo ay Somaliland sheegtay in ay hadda hor istaagtay tallaabadii ugu weyneed ayaa ka taagan qorshahan ugu weyn ama culus ee si gaar ah ee loo hadalhayay saacadihii ugu dambeeyay tallaabooyinka qaarkood waxa ay muujinayaan in ay markaasi dhinaca kale loo qaaday tallaabadii ugu cusleed iyo qorshihii ugu weynaaba oo dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay aad markaa loo hadalhayay Somaliland ayaa ku dhiiratay in ay qaado tallaabo culus oo ay u arkaan inay ku hor istaagayaan ama ay markaasi safarkii Xasan Sheekh Maxamuud ee Laascaanood ay ku baajin karaan dronestan oo ah mid imaaraadka ay dhawaan kala soo wareegeen Somaliland ayaa cabsi badan laga muujiyay taasi oo keentay in ay si degdeg ah u qaadaan xilligani tallaabooyinkii ugu waaweynaa Somaliland tan iyo markii uu soo ifbaxay xogtan la xiriirta inay Somaliland qaadayso qorshaheeda ugu weyn ee arrintan la xiriirta waxaa cabsi badan laga muujinayay qaadista tallaabooyinkan inay abuuraan haliso kale iyo cabsi kale oo xoogan iyada oo ay soo tarayeen wararka sida gaarka ah oo la xiriira tallaabooyinka degdega ah iyo qorshaha Somaliland marba marka ka dambeysa ay qaadayso dhowr arrimood ayaa ku gadaana safarkan waxaana ugu weynaa midda la xiriirta in ay Somaliland markaasi ay ka hortagayeen qorshe la sheegay in magaalada Laascaanood lagu dejin lahaa haddii ay hirgeliyaan mashruucooda ugu weyn iyo tallaabooyinka degdega ah oo qorshahan sida gaarka ah markaasi u la xiriira waxaa kale oo Somaliland ku dhiiratay markaasi qaadista tallaabooyin iyada oo ay tijaabooyinka ay sameynayeen gaadiidka iyo hubkii cuslaa ee dhawaan ay la soo wareegeenna ay qayb ka mid ah markaasi ka tahay ama qayb ayba ka tahay diyaaradahan droneska ah oo dhawaan ay la soo wareegeen in lagu tijaabinayo markii ugu horeysay howlgallada Somaliland ay sameynayaan qorshahan ugu weyn oo ay markaasi dawladda dhowr ku lug leeyihiin ayaa la ogaaday in Somaliland ay u qaadi doonto magaalada Laascaanood oo xarun u ah maamulka waqooyi bari ama SSC Qaatumo Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye hogaamiyaha waqooyi bari ayaana wajahaya cadaadiskii ugu weynaa oo hadda kaga imaanaya dhanka iyo Somaliland kadib tallaabooyin culus oo ay u qaadeen dhowr arrimood oo degdeg ah oo iskaashanayay muddooyinkii ugu dambeeyay iyaga oo waliba qorshahaasi uu ahaa tii ugu cuslayd iyo tallaabadii ugu weyneed ee Somaliland markaasi ay u qaado dhowr arrimood oo culus imaaraadka carabta ayaa dronestan ugu deeqay dhawaan Somaliland waana hub ay dhawaan markaasi la wareegeen waxaana dronestan ay yihiin kuwo markaas sameyn kara bartilmaameedyo muhiim ah taa oo halis badan ku abuurtay safarkii Xasan Sheekh Maxamuud cabsi badanna ay ka qabaan qaar ka mid ah xubnaha ay markaa ugu saameynta badan ee arrimahaasi safarka Xasan Sheekh la xiriiray iyo in ay Somaliland baqaadayso tallaabooyinkani waxaa saacadihii ugu dambeeyay aad ay ugu goodinayeen Somaliland inay qaadayaan qorshe ka hortagaya xubnahan socdaalka u ah magaalada Laascaanood oo ku wajahnaa uuna qayb ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud waana
mas-uuliyiintii ugu horeysay ee la filayay inay halkaasi gaaraan. waxaa hadda wararka soo baxayo sheegayaan in markaasi Somaliland ay qaadayso tallaabooyin kale oo culus iyo arrimo degdeg ah oo isla socdaalka xasan sheekh maxamuud la xiriira iyada oo laga hortagayo qorshahan culus ee degdega ah oo Somaliland haddaba ay u qaaday sidii ay u dardargelin lahayd mashruuceeda ugu weyn oo ah in ay markaasi bartilmaameedsadaan garoomada diyaaradaha iyo meelaha kale ee muhiimka ah. waxaa Somaliland ay markan si gaar ah waliba ay u cabsi geliyeen safarkii iyo mas-uuliyiintii Laascaanood tagi lahaa. qaar ka mid ah xubnihii tagi lahaa magaalada Laascaanood oo ku wajahnaa waxa ay cabsi awgeed uga baaqdeen safaradii halkaasi ay ku tagi lahayn. waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa uu si cad u diiday safarkiisii Laascaanood ama casuumaadii iyaga oo noqday isagoo si gaar ah u noqday madaxweynihii saddexaad ee diiday safarkaasi. horey waxa u diiday Axmed Madoobe iyo Saciid Dani, waxaana uu noqday lafta gareen madaxweynihii saddexaad ee diida qorshahaasi oo socdaalka uu ugu tagi lahaa magaalada Laascaanood. casuumaadii loo soo dirana si toos ah u diiday iyada oo ay u muuqato tallaabooyinkani inay yihiin kuwii ugu waaweynaa. haddana waxaa soo taraya qorshayaal culus oo ay markaasi dhinacyadu ay qaadayaan. wararka hadda laga helayo magaalada Laascaanood ayaana u muuqda inay yihiin kuwii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee hadda loo qaado. dhowr arrimood ayaana markaasi tallaabooyinkani loo qaadaya iyada oo ay si gaar ah markaa ay u socdaan qorshihii ugu dambeeyay ee arrimahan la xiriira. waxaa xubnaha qaarkood ay wadaan tallaabooyin degdega iyo qorshayaal culus iyada oo waliba ay soo tarayaan wararku. haddana waxa uu markaasi tallaabadan ugu weyn ee markaasi hadda u muuqato qorshaha ugu culus ee Somaliland ay qaadayso markaasi ay tahay inay ka hortagayso qorshaha degdega ah iyo arrimahan hadda la xiriira safarka xasan sheekh maxamuud ee magaalada Laascaanood iyaga oo waliba ku guudiyay inay qaadayaan tallaabooyinkii ugu waaweynaa ama ugu horeeyay oo si degdega markaasi haddaba ay u qaadayaan. dhowr arrimood ayaana u muuqata in ay markaasi si gaar ah ay ugu wajahayaan caqabadahoodii ugu waaweynaa. Somaliland waxa ay markaan qaadaysaa mid ka mid ah tallaabooyinkeedii ugu cuslaa oo ah inay hor istaag ku sameeyaan oo ay horgalaan qaar ka mid ah safarkaas iyo socdaalkaasi oo la filayay in ay markaasi haddaba hor istaageen. tallaabadii ugu weyneed ee loo qaaday arrintanna waxa ay tahay in laga hortagay qorshe culus oo halis ahaa iyada oo waliba sirdoonka Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay ay ku howlanayeen in ay markaasi ay ogaadaan Somaliland waxa ay adeegsan karto qorshaha ay damacsan tahay iyo mashruucoodan hadda ugu weyn sida gaarka ah markaasi loogu wajahayo tallaabooyinka qaarkood oo haddaba la qaadayo in markaasi laga hortagana ay dhinaca kale qorshaheedu ay si weyn oo baaxad leh markaasi ay u socdaan. laba arrimood ayaa soo dedejiyay hadda qorshaha Somaliland in laga hortago oo ah in markaasi safarkii xasan sheekh uu dib u dhaco iyada oo warar kalena ay jiraan. haddana waxaa aad isku soo taraya socdaalkaasi baaqashadiisa in ay markaasi Somaliland ka hor istaagtay drones iyo diyaarado kale oo dagaal oo ay dhawaan heleen. waxaana ay u muuqataa sidoo kale tallaabadan qaadisteeda midii ugu weyneed. Somaliland ayaana ku dhiirinaysa hadda inay qaado tallaabooyin kale oo degdega iyo qorshayaal kale oo culus oo waliba isoo tarayay dhowrkii saac ee ugu dambeeyay. waxaana ay si gaar ah markaasi u qaadeen tallaabo kale oo degdega ama culus tan iyo markii ay soo ifbaxeen. wararkana waxay ahaayeen kuwa aad u sii xoogeysanayay saacadba saacada ka dambeysa oo ay si gaar ah markaasi u qaadayeen tallaabooyinkan degdega ah ee Somaliland markaasi la xiriira. waxaa soo taraya hadda si gaar ah wararkan iyo macluumaadkan la helayo iyada oo waliba ay soo ifbaxayaan dhowr arrimood oo la xiriira socdaalka xasan sheekh maxamuud ee magaalada Laascaanood. wararka la xiriira ee wali markaasi ku gadaaman iyo baaqashada safarkan oo lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu weynaa ee xasan sheekh uu ku tagay lahaa magaalada Laascaanood oo waliba uu ku wajahan yahay magaaladaasi iyada oo ay wali jiraan hor istaagyo iyo tallaabooyin kale oo culus. haddana waxaa soo taraya warar kale
oo si gaara markaasi u muujinaya in tallaabooyinka qaarkood ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee la qaado, iyada oo ay markaasi haddana ay tallaabooyin kale ay muujinayaan in si gaar ah loo qaadayo. waxa xogaha qaar ee la helay ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee la qaado, iyo in markaasi tallaabo kale oo culus oo degdeg ah ay si gaara markaasi u muujinayso, iyo in ay tallaabadan ay markaa maalmihii ugu dambeeyeyba u ahayd kuwo aada isku soo tarayay. tan iyo markii la ogaaday xogtanna waxay ahaayeen dhaqdhaqaaqyadu kuwo ka daran kuwii hore oo marba marka ka dambeysa ay si gaar ah ay u qaadayeen. tan iyo markii xogtani ay soo ifbaxday waxaa la helayay dhaqdhaqaaqyo kale oo culus iyo tallaabooyin kale oo waaweyn, waxaana ay markaasi dhinaca ay Somaliland ay markaasi u qaadeen tallaabadan mid aada u culus, iyadoo ah qorsho degdeg ah oo tallaabooyinkooda sii xoojiyey, iyo in ay markaasi bilaabeen ka hortagga qorshahoodii ugu weynaa magaalada Laascaanoodna markaasi ay u wadeen muddooyinkii ugu dambeeyey, aadna ay usii xoojinayeen dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah magaaladaasi, iyo in markaasi aada ay isugu gadaameen dhinaca kale qorshahooda ugu weyn ee arrimahani markaasi la xiriira. waxaa isoo taraya safarka Xasan Sheekh Maxamuud iyo in socdaalkan uu yahay kii ugu weynaa, haddana waxaa dhinaca kale ay u muuqataa hadda in ay tallaabadani aada usii xoojinayaan dhaqdhaqaaqyadan ay Somaliland ku dooneyso in ay markaasi ku dedejiso safarka socdaalka iyo qorshaha markaasi Xasan Sheekh ee Laascaanood in si degdega looga hortago. waana tallaabadii ugu weyneed ama ugu cuslayd ee la qaado tan iyo markii la ogaaday xogtani iyo qorshahan, si gaarana markaasi ay u muuqato in ay u dardargelin karaan dhinaca kale xubnahan socdaalka iyo qorshaha Xasan Sheekhna aada markaasi u hor istaagay. waxaa wararku ay sheegayaan hadda in qorshahan uu yahay kii ugu weynaa ama ugu cuslaa ee loo qaado socdaal safar madaxweyne uu geli lahaa oo looga hor istaago, iyada oo cabsi badani ay markaasi hadda ka muuqato dhinaca iyo socdaalka xubnihii ku tegi lahaa gudaha magaalada Laascaanood oo is hor istaag lagu sameeyey. cabsi badanna ay markaasi kasoo ifbaxaysa haddaba, iyadoo la helay qorshahoodii ugu weynaa iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa ee loo qaaday isla arrimahani. haddana waxaa isoo taraya warar kala duwan oo la xiriira arrimaha sida gaarka ah socdaalkan iyo safarkan markaasi ku gadaaman. tan iyo markii ay soo ifbaxeen wararkani waxa ay ahaayeen kuwo aada u xoogan, waxaana magaalada Laascaanood laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyo tallaabooyin ciidan oo isdiidan. ciidanka ugu badnaa ayay dowladda Soomaaliya dhankeedu ay u qaaday magaaladaasi, waxaana ay ka hortageen qorshaheedii ugu weynaa oo ay markaasi hadda lasoo warinayo in ay si weyn markaasi isugu gadaaman yihiin, dhinacyo kala duwanna ay ku doonayaan markaasi ka hortagooda, iyada oo ay u muuqato in si degdeg ah loo qaadi doono tallaabooyinkan qaarkood oo ay haddaba yihiin kuwo aada u culus ama isoo taraya dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey. waxaa xogaha qaar aynu helnay ay markaasi ama warqabadkeenu kusoo dhacay ay muujinayaan in Somaliland ay u qaadayso tallaabadan sida degdega ah, iyada oo weliba dhinaca fila Soomaaliyana ay waday qorshaheedii ugu dambeeyey ama ugu cuslaa ee socdaalka Xasan Sheekh Maxamuud. kulamo kala duwan ayaa ka socda madaxtooyada Soomaaliya, waxaana aada markaasi loo hadal hayaa socdaalkan iyo sidii loo suurtagelin lahaa. waxaana socdaalka magaalada Laascaanood uu ku tegi doono Xasan Sheekh Maxamuud hogaamin doona oo safarkaasi qayb ka noqon doona inta badan golihiisa xukuumadda. sidoo kale waxaa ku wehelin doona oo dhaqdhaqaaqaasi si ay ula socdaan raaci doona taliyaha militariga, ka nabad sugidda, wasiirka gaashaandhigga, iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska oo isna qayb ka noqonaya safarka Laascaanood uu ku tegi doono Xasan Sheekh Maxamuud. wasiirada dhanka amniga iyo gaashaandhig u qaabilsan ayaana sidoo kale iyana socodkaasi qayb ka ah, iyada oo weliba ay sii wehelin doonaan wasiirka arrimaha gudaha, kan qorsheynta, iyo dhinacyada kale weliba si gaara taliska sahanka iyo sirdoonka ee ciidanka xoogga dalka oo markaasi dhowaan xariga laga jaray ayaa qayb ka noqon doona socdaalka Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Laascaanood. walow aan si dhaba loo ogeyn xilliga rasmiga, haddana
waxaa issoo taraya wararka sheegaya in dib u dhac uu ku yimid socdaalkaasi qorshihii ugu weynaa ee xasan sheekh ee magaalada laascaanoodna in markaasi ay yihiin hadda kuwo ay caqabado waaweyn ay hortaagan yihiin iyo culeysaad siyaasadeed oo ka yimid dhinaca iyo somalilan baqdin xooganna filla soomaaliya hadda ay qabto taa oo sii xoojin karta caqabadaha iyo culeyska ka taagan safarkaasi iyo socdaalkaasi la qorsheynayay in la qaado tallaabooyinkii ugu dambeeyana ay weli ku gadaaman yihiin ama ay hortaagan yihiin marka la eego sida degdega ah ee loo qorsheynayo waxaana ay hadda mas-uuliyiinta qaarkood sii diyaarinayaan qorshahoodii ugu weynaa dhowr diyaaradood oo ciidan ah ayaa la filayaa inay ka degaan magaalada laascaanood ee xarunta u ah maamulka SSC qaatumo oo ay markaasi ka degi doonaan diyaarado dagaal qorshahoodii ugu weynaa ee la xiriira arrimahan degdega ayaana ogeysiis muhiim ah cisbitaalka Samaker waxa uu bilaabay 6 bishii Julaay oo daaweyn iyo qaliimo ay fulinayaan khubaro u dhalatay dalka Suudaan kuwaasi oo kala ah Dr. Osama Gasmal Said oo qabiir ku ah cudurrada haweenka iyo taranka IVF iyo Dr. Maxamed Cabdilxamiid oo ku takhasusay qaliimada guud iyo bogsakarowga la kulanka dhaqaatiirtu waa lacag la'aan qiimaha qaliimada waxa la dhimay 50% waxa ayna socon doonaan muddo 45 cisho ah ee horay u gaar Samaker oo ku yaala kaasa balbalaare ka soo horjeedka saldhigga hodan waxa uu noqonayaa midkan sida gaarka ah markaasi looga gudbin doono tallaabooyinkan qaarkood xogaha qaar ee la helay ayaa muujinaya hadda tallaabadii ugu cusleyd ama ugu weyneed ee socdaalka xasan sheekh maxamuud waxyaabaha is hor istaagayna ay ugu weyn yihiin in ay Somaliland markaasi bilowday qorshe halis ku ah mas-uuliyiinta tagaysa magaaladaasi oo cabsi badani laga dareemay deegaanada qaarkood iyadoo oo weliba ay dhaqdhaqaaq ciidan bilaabeen durba waxaana weli aanan suurtagelin keenista laascaanood ciidankii ugu badnaa ee dowladda ka tirsan oo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa sidoo kale gaarka loo leeyahay markaasi laascaanood socdaalka uu aadi doona ay qorsheynayaan in maalmaha iyo saacadaha soo aadan ay fuliyaan dhaqdhaqaaqyadaasi waxaana aad u sii xoogeystay hadda tallaabooyinka dhinaca iyo loo qaadayo qorshahan hirgelintiisa iyadoo oo weliba ay soo tarayaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan haddana waxay u muuqataa in tallaabadii ugu weyneed hadda loo qaadi doono magaalada laascaanood oo qorshahan sida degdega ah ay u fulinayaan Somaliland hadda ay tahay midii ugu weyneed cabsi badanna ka dhex abuurtay dhinaca iyo filla Soomaaliya oo dib u dhac uu ku yimid mar kale safarkii socdaalkii iyo socodkii xasan sheekh maxamuud ee magaalada laascaanood oo dib u dhacan uu ku yimid markaasi aad hadda loo hadalhayo iyadoo oo weliba ay socdaan qorshihii ugu dambeeyay haddana waxa ay soo taraya dhinaca kale tallaabada filla Soomaaliya iyo qorshaha ay qaadayso